الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد walaalayaal diinteenna islaamku waxay inoo damaanad qaaday haddii aynu qaadanno ay inoo kafaalo qaadatay haddii aynu ku dhaqanno wixii diinteenna iyo adduunkeenna iyo nolosheenna uu ku hagaagayo dhinacay u tahayba in waxa weeye inoo kafaalo qaatay diinta islaamka waxaa ka mid a qadiyado iyo masaa'il iyo waxyaabo lagu tilmaamay lama taabtaan oo laga dhigay waxyaabo lagu khasban yahay si loo ilaaliyana axkaam badan loo jideeyey waxyaabo badanna loo xaaraantinimeeyey waxyaabaha waxaa loo yaqaanaa adaruuriyaat alkhams aw sit waxyaabaha lagu khasban yahay ee shanta ama lixda ah waxaa kowka ah diinta in la ilaaliyo waxaa ku soo xiga nafta in la ilaaliyo waxaa ku soo xiga xoolaha iyo hantida in la ilaaliyo waxaa ka mida nasabka in la ilaaliyo iyo abtirsinta in la ilaaliyo waxaa ka mida cirdiga iyo sharafta in la ilaaliyo waxaa ka mida caqliga in la ilaaliyo waxyaabahaasi waa waxyaabo lama taabtaan wax allaale wixii waxyeelaya ee wax gaadhsiinayana waa la xaaraantinimeeyey bal waxa laga dhigay dunuub waaweyn ayaa waxa weeye laga dhigay waxaa ka mida waxyaabahaas maqsadulcird dadka sharaftooda iyo karaamadooda iyo cirdigooda in la ilaaliyo cirdigu waa maxay waa mowdicu dami walmadxi min alinsaan waa halka qofka laga ceebeeyo ama laga dhaleeceeyo ama laga ammaano waxyaabo badan baa soo gudagelaya waxaa ka mida qofka cirdigiisa in la ilaaliyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in wax la yeelo la aflagaadeeyo waxaa soo gudagelaya waxa dadku ay ka dhiidhiyaan hablahooda kuway dhalaan iyo kuwa ay qabaan iyo kuwa la dhashay waxyaabaha noocaasa acraada dadka weeye waa wax la ilaaliyey weeye waa qofka sharaftiisii hadduu dayacana waa ku ceeboobayaa hadduu ilaaliyo oo uu difaaco oo ka dhiidhiyana sharaf iyo karaamuu ku helayaa sharcigeennu taa isagoo ilaalinaya waxyaabo badan buu jiday guurkii baa la booriyey in la fududeeyo yaa macshara shabaab man istaaaca minkum albaa'ata falyatazawaj dhallinyaradiibuu ku guubaabiye guurka ku guubaabiyey waalidiintiiba waxa lagu guubaabiyey idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh nin dhaqan iyo dabeecad iyo diinla hadduu idiin yimaado siiya xoolayaa lagu xidhin meherkii baa la yidhi hala fududeeyo acdamu nisaa'i baraka aysaruhunna ma'uuna dumarka waxaa ugu barako badan buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ugu khayr badan dumarka kuwa meherkoodu fudud yahay waxyaabahaasoo dhan waxaa looga jeedaa cirdiga in lagu ilaaliyo dhinac kale waxaa la xaaraantinimeeye zinadii waxaa la xaaraantinimeeyey liwaadkii waxaa la xaaraantinimeeye wixii qofka gaadhsiinayey dumarka cawraadkooda ama isha in lala raaco ama in lala khalwoodo oo guri keligood lala galo gabadhii ajnabiga ka ahayd ikhtilaaq in la sameeyo oo ragga iyo dumarku ay isku milmaan oo ay kala soocmi waayaan gabadhii ajnabiyadda ka ahayd in la qacan qaado ama la taabto iyo waxyaabo badan oo la mida sharcigeennu waa xaaraantinimeeyey iyadoo acraadda la ilaalinayo wixii dhacana axkaam baa ka dhalanaysa
oo ogtiin axkaamta waaweyn ee laga dhaliyey zinadii oo ah qofku inuu galmo xaaraana sameeyo haddaanu guur soo marinna 100 jeedal iyo sanad in la mustaafiriyo magaalada laga fogeeyo ayaa lagu xukumay markay caddaato hadduu guur xalaala soo marayna dhagax in lagu dilo ayaa sharcigu jideeyey waa zinadii haddii ay tahay liwaad iyo ficilkii xumaa nin la mida inuu xagga dambe uga tago wuxuu hi nabigu calayhi salaatu wasalaam faqtulu lfaacila waalmafcuula bih ka sameeyey iyo ka lagu samaynayo labadaba hala dilo hadduu yahay kufsi oo ficilkii xaaraanta ahaa uu sii weheliya in la ysku dirqiyo oo qofkii oo aan raalli ka ahayn lagu khasbo guur galmo xaaraana lagu khasbo dembigu waa ka sii weynaanaya daahiradaas ama dhacdadaas oo aad moodo xilliba xilliga uu ka dambeeyo inay sii badanayso waa weydin dhowaan dhacday aad u falxumayd maalin dhoweyd oo aan miyada u baxay odaygii hadlaaba wuxuu ka hadlayay kufsi buu ka hadlayay kufsigii baa batay ayaa waxa weeye lagu soo celcelinaya oo aad moodo inta magaalada ka dhacaysa miyigu inuu ka badan yahay maxaa keenay waa in la isweydiiyaa marka sababaha la ogaado marka xogta la helo ayaa tala imanaysaa waxa keenaya marka la ogaado ayaa ka hortagu fududaanaya waxaan maanta ugu talagalay khudbadan inaan dul istaago sababaha keenaya sida looga gudbayo sababaha waxaa ka mid a sababta caamka cid waliba ay dareemayso in diintii alle subxaanahu wa tacaala laga fogaaday in dadka iimaankoodii u daciifay in macaasidii iyo xumaantii la dhex dabaalanayo munkaraadka iyo fasaadka kala duwan ee faafaya iyo dadkii oo qulubtoodu daciiftay oo ay sii jeesatay oo fitnoobay taasi waa sabab caama oo cid waliba ay ogsoon tahay markaynu sababaha sheegayno macnuhu maaha in la difaacayo ka sameeyey waynu ka hadlaynaa wuxuu mutaysan yahay sharciga alle iyo waxa uu istaahilo waynu ka hadli doonaa laakiin marka sababaha la sheegayo waxaa loo sheegayaa sababaha noocaasa in laga digtoomaado oo laga fogaado taasi waa sabab diiniya oo cid waliba ay dareemayso ninka ficilkaa xaaraantaa ku kacaya ee doonaya inuu zinaysto oo dunuubta waaweyn ka mida dunuubta wax halaagaya ka mida ee kabaa'iru dunuubka ka mida ninka u qasdiyey ee ka howlgalay ee welibana alla u dhib yareeyey gabadhii ay isku soo taagtay ninka inuu iimaan ku jiro waa ka laaban lahaa wuxuu uhi nabigu laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min ka zinaysanayaa ma zinaysanayo isagoo iimaan leh oo marka laga yaabo xitaa gabadha inay ogashahay ayaa nabigu iimaankii waxa weeye sheegay inaanu iimaan lahayn ka ku dagaalamaya ee khasbaya ee waxa weeye gabadhii hubu isticmaalaya ama jidhkeeda waxyeelaya si uu waxa weeye u xoogo oo khasab uu kaga qaado waad dareemaysaan iimaankiisu halka uu joogo markuu ficilkaa geysta hadduu ugu daro inuu waxa weeye qudha ka jarana waa la sii dareemayaa qofkaasi halka uu joogo sababta labaad waa asbaabun iqtisaadiya asbaab dhaqaalena waa keentaa marka camal la-aantu ay badato dhallinyarada ay ku badato dhinac kalena guurku ka qaaliyoodo oo waxa weeye aabbihii iyo hooyadii ay ku xidhaan waxyaabo badan oo guurka kharashkiisu u bato hadday yaro tahay hadday gabaati tahay hadday tahay agabkii arooska iyo xafladaha iyo wixii guriga la dhigaya lagu xidhayay iyo waxyaabaha la midkaa lagu adkeeyo
tanoocaasa guurku markuu sidaa u adkaado ninkiina dhallinyaro uu yahay iyaduna waa mid keenaysa inuu dhinaca u jiisto zina isku dayo hadday ku adkaatana si uu shahwadiisa u guto waxa weeye kufsi iyo wax la mida uu ku dhaco waa sabab dhaqaale oo saamayn leh sababaha waxaa ka mid ah asbaab ijtimaaciya bulshada laftoodu inay qayb ka noqdaan oo bulshadii haddii ay u aragto gabadhii la kufsaday gabadh ceebowday ehelkooduna ay ceeboobeen oo waxa weeye ninkii dambiilaha ahaana la yska sii daayo oo odayaashiisu ay ka howlgalaan oo hawshii la fududeeyo iyaduna waa mid keenaysa waxa weeye inuu bato oo la sahashado asbaabta ijtimaacigaa la soo koobi maayo walibana miyada ha ku sii badato gabadhii waxaa u soo gelaya dumaashigeed guri baadiye ah bay joogtaa waa keligeed waa kufsanaya waa gabadh hooyo caruur dhasha way iska aamusaysaa waxay odhanaysaa raggu waa isku dhimanaya oo niman ilmaadeera isku dili maayo waayo haddaan u sheega kawbuu kaga siinaya bale badan baa dhacaysa waa asbaabaha bulshada dhex yaalla gabadhii haddii ay dacwooto oo ay soo banbaxdo oo ay tidhaahdo ninkaas ay kufsaday oo sharciga ay la tiigsato markhaatiyadeedana ay keensato waxaa laga yaabaa inta lagu shaambadeeyo in la yidhaahdo waa gabadhii la kufsaday waxaa laga yaabaa guur dambe in asturo dee ehelkeeda mooyaane waxaa laga yaabaa nin dambe inaanu ku dhicin dembina ma laha walaa taziru waasiratun wisra ukhraa wax dembiya ma leh iyadii baa dhibbana ah waa bulshooyinku waxyaabaha ay sameeyaan ee hawsha noocana ka qayb qaadanaysa faafitaankeeda ka qayb qaadanaya asbaabta waxaa ka mid a atiknolojiya tiknolojiyadan casriga ee faaftay ee raggii iyo dumarkii sida fudud aan isu helay hadalka aan isla gaadhay hadday wada hadlayeenna hadalkoodu koobnaa oo habeenkii isku saamalaylaya isku dhiiranaya wasaa'ilu tawaasul اlijtimaaci social media iyo xidhiidhkan fududaaday lambarkaa la kala qaadanaya whatsappkaa la kala qaadanaya facebookaa la ysku soo darsanaya labada dhinacba wax walba waa la ys odhanaya waa la ysku soo dhiiranaya hadal aan la yskula dhicin inta xilliga la wada joogo baa mid waliba meel cidlaa isagoo joogo gidaar la hadlayo moobeyl dhegta ku haysta ayaa wuxuu doonu ku hadlaya marka muddo hadalkaa la wado ayaa marka dambe isu imaatinku dhacaya gabadhu waa laga yaabaa niyaddeedu inay wanaagsan tahay guur bay doonaysaa ninkuna waxaa laga yaabaa damacyo kale inuu leeyahay dabadeedna wuxuu xaawilayaa si fudud inuu wax uga helo wixii baraha bulshada laga waday oo muddo lala soo qabsaday baa la ysla hor imanaya iyadu waa daacado waxay isleedahay guur baa ka dambeeya isaguna guurkaa dee wuxuu og yahay waxa ka horeeya mas-uuliyaad wax degdega oo ka fudud oo ka dhow ayuu doonaya haddii ay diiddo waxa weeye waxa dhacaya kufsiya wax la mida ayaa laga yaabaa meesha inuu ka dhaco tiknolojiyaduna waa wax soo kordhay waxaa ka sii qayb qaatay isdhexgalkan badan ee welibana loo ololaynayo ee raggii iyo dumarkii la ysdhex wado la doonaya in la ysku milmo jandarka waxaa loo yaqaano labnimo iyo dhadignimo meesha in laga saaro sida gaaladu ay wado oo gabadhii meel kastoo rag ay joogaan inay doonayso inay la mid noqoto oo waxaa weeye 50-50 meel walba loo wadaago iyadoo mujtamacii aanu bislaan sharciga allana meelo badan oo masaa-isha ka mida la khilaafayo waxaa marka la isu geeyo waxaa isku fuuqsanaya marka waxaasi uu dhaco wixii laga yeeli lahaa sharciga alle xukunkiisu waa cad yahay culimmada islaamka kufsiga markay ka hadlayeen laba qole isugu khilaafeen qole waxay yidhaahdeen kufsigaasi hadduu zino yahay oo ninkii gabadh uu kufsado waa in xukunkii zinada la mariyaa
haddii uu yahay ninaan guur soo marinna waa 100 jeedal hadduu guur soo marayna waa in dhagax lagu dilaa sidii kii zinaystay ayaa loo ciqaabayaa dambigiisu haba ka weynaada mar hadduu kufsi sameeyey wala halkaasay ka baxeen culimo kale waana qowl shaaficiyadeennu ay qabaan waxay leeyihiin wuxuu hadduu kufsi yahay waa zinadii oo ay weheliso khasab u weheliyo taasi waa jariimo caama waa dembi weyn oo danta guud saamaynaya waa tarwiicu laaminiin dadkii nabadgelyada ku noolaa in la argagax gelinayo waa ifsaadun fi lard waa dhulkiioo la fasahaadinayo inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu waxaa lagu qaadaya xaddulxiraaba laba isweydiin mayso cidna wax laga weydiin maayo waxaa lagu qaadaya xaddulxiraaba oo dil baa lagu xukumaya ama si caadiya ha loo dilo ama inta la dila ha la soo daldalo xadkiisu waa qatli weeye sacuudigu wuxuu ka mid yahay dowladaha ugu kufsiga yar buu ka mid yahay marka caalamkii la qaybiyey Sweden iyo South Africa iyo dowladaha la midkaana waa kuwa ugu badan weeye markii la baaray sababaha waxa ka mid noqday sacuudiga kufsiga dil buu ku xukumaa hay'ati kibaar ulama kulanka culimada iyo shirkii ay galeen culimadii waaweynaa sacuudigu waxay isla qaateen oo go'aan ku gaadheen qofku haddii kufsi uu ku kaco in la dilo oo aan laba isweydiin oo aan la isugu iman labada itijaah ee culimadu kala mareen labada midna haabkeeda iyo wadadeeda ma hayno bal waxaynu haynaa wax fududaynaya oo ninkii dambiilaha bila dambi ka dhigaya kufsiga markaynu ka hadlayno warkiisa haddaynu ku soo dhowaano dawada koowaad waxay saaran tahay dowladda waxay saaran tahay sharciga alla subxaanahu wa tacaala in la dhaqan geliyo oo ciqaab adag oo waxa weeye dadka argagax gelinaysa ilaa waxa weeye laga oogo markaynu ku soo dhowaano xaaladuhu waa kala duwan yihiin ninku gabadha hadduu la sheekaysanayay oo ay isfahmeen oo ay khalwo isla galaan oo dareenkiisu uu qaado waa ku jecelahay iyo waa ku dhimanaya iyo waa ku xiisooday ay habeen barhkii isku leeyihiin iyagoo cidla jooga dabeedna uu xoogo dhib kalena aanu u geysan kaa haddii xadka zinada la mariyo oo ciqaabta uu leeyahay la mariyo ka waxa weeye gabadhu ay kiraysatay ee tigta wata ama tagsiga watee la aaminay ee magaalada ka shaqaysanaya ee gabadhii markuu qaaday ee nool ay ku heshiiyeen rag kale u kaxaysto bannaanka ula baxay oo kufsi ku samaynaya saamaynta uu bulshada ku keenaya waa la dareemaya ama waxa weeye gabadhii dhibaatooyin kale u geysanaya ama si jamaaciya oo kooxaysiya gabadhii loo kufsanayo ama ilmo yaroo sabiya la kufsanayo ama qof waayeeloo gaboobay islaamo 80 jir baa la kufsaday oo taag dareeyay kufsanaya cala alaqal xaaladaha noocaasa waa in go'aan adag laga qaataa cuquubo raadica oo cid waliba ay ku waantowdo in waxa weeye laga shaqeeyo laakiin taa wadadeedana ma hayno bulshaduna ma hayso dowladuna wadadiisa ma hayso haddii xaalku sidaa yahay fasaadkuna badan yahay guurkuna adag yahay dadkuna uu isku dhex jiro waxaa dee fitnada iyo fasaadka keenaya filimadii ibaaxiga ah ee galmada sida cad u samaynayay moobilada ay ka wada buuxaan hariya habeenna gabdhuhu baxayaan oo aan la ilaalinayn subaxiiya iskuul u baxayso gelinka dambe madrasada u baxayso maqribka ay bareefada u baxayso bacda alcishaa saaxiibada leeda waa la soo muraajacaynaya oo wakhtiga badankiisa guriga ay ka maqan tahay warna aan loo hayn inta ay joogtana qol ay ku jirto oo ay hadlayso mas-uuliyadda waalidiintana wax badan baa ka soo gaadhaya walaalayaal in aad iyo aad loo digtoonaado
fasaadka noocaasi markuu faraha ka baxo waa dhib aad u weyn waa taa sharcigeennu ka digayo axkaamta adagna uu ka jireeyey waxaasoo dhan waxaa looga jeedaa naxariis darra ma aha maanta marka ninka guurkii xalaashaha soo maray halkaa la soo taagayo godka loo qodayo ilaa xundhurtiisa la aasayo kadibna dhagax weyn lagu dili maayo boqolaal dhagax lala dhacayo waayo la dooni maayo hal mar inuu dhinto rajmigu waa in dhagax lagu dilo dhagax gacanta buuxinaya inta la jiifiyo dhagax weyn oo ila qaba ah madaxa lagu bashaaqiyaa rajmi maa kaasi waa dil caadiya wey oo markuu dhagaxu sidaa ugu dhaco naftu ka baxayso dhagax gacanta buuxinaya sida badan qofka hal mar dili maayo waliyashhad cadaabahuma طaa'ifatun min almu'miniin waxaa la yidhi dad badanna goobjooga ka noqdaan waxaasoo dhan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa dhibkaa halkaa ku sugan iyo fasaadka ka dhalanaya in waxa weeye la xakameeyo ayaa looga jeedaa marka mowduuc sahlan ma aha qof walba waajib baa ka saaran hadday xukuumadda tahay hadday culimada tahay hadday waalidiinta tahay haddii ay tahay bulshada qaybaheeda kala duwan in aad iyo aad looga hortaga weeye qof waliba walaal buu leeyahy waalid buu leeyahy kuwa uu dhalay buu leeyahy marka uu maqlo magaaladii uu joogayba waxaasi ka dhaceen wuxuu u baqayaa tii uu dhalay iyo tii la dhalatay buu u baqayaa argagaxa noocaasa waa nabad amni daro ummadda ku imanaysa wey weliba aan noocyadeeda ugu xun alaa wasaluu wasalimuu calaa nabiyikum alaamiin alladii amarakum allah بالصلاة والسلام عليه بقوله في كتابه المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ادفع الضر والبلاء عن المسلمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ونعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن جميع بلاد المسلمين